odayaasha dhalinyarada aqoon-yahanka iyo guud ahaanba shacabweynaha ku nool degmada Xariirad ee gobolka Salel ayaa sida fiinta uga waraaqay lacaga ay sheegeen in lagu soo rogay dadka isaga gudbaya xuduudaha dhinaca Itoobiya iyo Soomaaliland ee magaalada Xariirad waxayna dadkaasi ku andacoonayeen inay Xariirad la xuquuq tahay magaalooyin badan oo kulaala xuduuda dhinaca Soomaaliland iyo Itoobiya oo ay kamid yihiin Wajaale, Gorayacawl iyo Allaay baday waa siday hadalka u dhigeen waxayna intaasi ku dareen dadweynaha halkaasi ka hadlayay isla markaana baaq u direen xukuumadda Soomaaliland inay ilaaliso dastuurka iyo sharciga dalka ilaalisana midnimada ummadda Soomaaliland loona cadaalad sameeyo gobolada dalka Soomaaliland lana soo farageliyo arinta ka taagan degmada Xariirad haddaba waa kuwan odayaashii wax garadkii halkaasi ka hadlay waxayna kamid ah hadaladoodii oo isku dhafan labada beelood ee degta degmada Xariirad ujeedkan ka hadlayni waxa weeye waxayna ummadu qaadan mayno waxaan Soomaaliland ka jirin qaadan mayno anagu waxaan nahay dad Soomaaliland dara oo Soomaaliland ku abtirsadana marnaba halka iyo maalintii Soomaaliland la taagay ee lagu dhawaaqay dadka ay idsan baadnahay in marnaba wax kasta oo ileedahay Soomaaliland la garab joogaan hantida ah hadday jaad halkan waxaan joognaa imika aan taaganahay waa kastankii degmada Xariirad kama horjeedna dawladda waan ogol lahay cashuurta sharciga ay dawladdu leedahay jaad baa ka soo gala meesha ogol baan ku nahay waxaan diidanahay waxaan caalamka ka jirin qaadan mayno annagu caalamka waxaan ka jirin qaadan mayno sababtoo ah dad la cashuuro caalamka ma jiro yeelina mayno waxaan la mid nahay Itoobiya halkay laascaanood ka noqotay halkay Lawi Cadda ka noqotay Soomaaliland way ku furan tahay Itoobiya ku furan Itoobiya iyo Soomaaliland xiriir baa ka dhaxeeya wanaagsan baa ka dhaxeeya mid ma yeelayna deeano wadada quljeed ka soo gashay ee gobolka Awdal wadada ka soo gasha أو برة وضل كسوق الشعون قبض وضل كسوق الشوجاله وضل كسوق شهر تشيخة وضل كسوق الشب اللي قبله أنت أوردني أنت كوبن مركان سوق أتى أسوق هيسا أنت بإثيوبيا كفرون هذه أنت ضل عشور هاي جيران لم يتبانه كمهرجيد لكن وحوي أنا قبل كسر وحي ضل دقي ضل عشوره وحي ضل دقي هذه ليضة ما جرتد وسوماليلاند هذو كم مدمتي والله وعبرنا يا هذه ليضة ودي تال إيش شيء يالي ماي كايالي ماي تاهنو سوماليلاند مركي أنا جايتي ما دروق بانو دقا أنا جانا رد دميرات بيجي دقا ما ترد oo naloo waayay wax kale oo Senegal la keenay hadii naloo waayay wax kale oo naloogu bedelo hadii la waayay dawladdu waa nasiibka hanoo sheegto hadii ayna hayn Ilaahay hadii uu yaqaan madaxweynaha qaaliga ah ee Muuse Bixi waxaan ka codsanaynaa inuu horta naga dulqaado waxaan leeyahay gobolkan ninka baaba'saday ee dhan walba u dilay waa balasaabka hadduu degmahayana kuwa maanta la doortay doorashada dambe ku soo baxay maahine kuwa hore gudoomiyaha maayir isaga ka aha meesha ku xigeenna isaga ka aha wasaarad kasta oo gobolka joogtana ninka gobolka haysta ee isku dugaha ka waa isaga baan kolka nidhi wax cashuura iyo wax hanti qarana oo la diidayaana meesha ma jiro laakiin waxa la diidayaa madax taabadka iyo madax kirada adduunka lama arag qof la kireeyo koob iyo 30 qof laga qaado oo madaxiisa la cashuuro meel kasta wadanka waa laga soo galaa wadanku siduu yahay ka mid nahay iyo halkii waalidadiisu joogeen la leeyahay koob iyo 30 dollar baa laga qaadi waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland cidda ay ka socoto iyo cidda soo dirtayba arrinka anagu ma ogolin af buuxa waxaan ku leenahay arrinka anagu ma ogolin
hooya ma ogolo aabana ma ogolo inana ma ogolo waxaan leenahay xukuumadda Soomaaliland arrinka dib ha looga eego haddii habeen laga fikiray war arrinka bal raarha laga fikiraan leenahay waxay wax soconaysa maaha waxyaalaha kale ee Soomaaliland anagu aan diidanahay maaha cashuur maaha waxaan diidanahay waxa weeye lacagtan gibirka ah ee madax furadka ah ee dadka la leeyahay hebel kii halka soo maraba laga qaado shalay baan halka soo maray anu halkan baan u dhashay degmadaan u dhashay $130 keen kolka la yiraahdo halka ka keenaya kolka waxaan u baahanahay Soomaaliland waxaan leenahay gaar ahaan madax meel ka sareeyo taabtimo jirtay xukuumadda Soomaaliland Muuse u sarreey mudane madaxweyne waxaan leenahay afkii dhalinyarta anagu ku hadlayna arrinka dib ha loo eego anagu maanta haddaan dhalinyartii xarada aan nahay waxaanu leenahay lacagta $130 ee la soo rogay lacagta yeeli mayna leenahay aan raalli ka nahay maaha anagu magaaladan xaradeen maanta deganahay dhalinyartu shaqo kuma hayso dhalinyartu magaalada xarad bay iska joogtaa bariiska iska ridataa xaafadaha hooyooyinkood bay joogaan $130 ka laga keenayba inaan ka yaraa xarad ka yimid ama dhulgo ka yimid wax barasho dhiganay ama halkan aan joogay $130 ku ka kaani dawladii aan lacag ka sugaynay ama aan shaqo ka sugaynay hadda anaga lacag dib oo cashuurta ma diidani laakiin waxa diidanahay waa $130 ee dacalkii am ka dhigay ayaan diidanahay xuduudda ummadii haa wanaanaabis ee masaakiinta ee bacadka saddex dharaara ummadii laagta waxayna waxba yaraatay umma magaaladiina way baabiisay dalkiina uu baabiyo ummaduna ummadeeni dadkuna waa dadkeeni in loo naxariisto madaxweyne waxa ka qabsan dadka loo naxariisto waa dad masaakiina waa dad naanaabaya waa dad xagan laba kartooro bariisa iyo kabdad bariis xaan ka qaaday oo halkan biyo qowwe iyo halkan tagaya annaga Jabuuti dad noogama soo galo oo dad Jabuuti ka soo galay ma jira waa dadkii qabaleeyadani inagu dhow iyo magaalooyinka inagu dhow ka soo galay way Itoobiya iyo Soomaaliland colaad u dhaxaysa maarag anagu Jabuuti ma la xuduud lmani dad Jabuuti nooga soo galina ma jiro dad baastaboor tira ma jiro war waa dadkii xuduudaha magaalada wax ka iibsanay ee deegaanka galaya way dadka laga qaaday $130 waxaan ka codsanay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madax meel ka sareyso la taabtay ma jiro adiga yaa madaxweynaha dalka ka adiga lagu weydiini adaa mas'uulka dad binaadam la cashuuro ma arag xoolo la cashuuro iyo qalab la cashuuro waan arag laakiin dad binaadam la cashuuro ma arag marka waxaan leenahay arinta laga fiirsan leenahay ilaahina laga boqo nooga doonto mudane madaxweyne Cabdi Majiid Ibrahim Muumin wararka telefishinka caalamiga ee Ariel magaalada Xariirad